السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حالة دلك إنجليز كجارهان عاصمة لندن ما أنت واصلة. والفيري لبجه والله بلا بحكر دون عداك أرز دلك وعنصريين أو عنصريين دلك إسلام كأي عنصريين إلين دلك هو بحن إسلام كي ما أنت بنا بحي وقبصده ولو حركة عرب بدل أركاي أو فلسطين أركاي بنا بحكوا جرا عرب بدل أو فلسطين أي بنا بحكوا جرا آدي وبنا بحين oo markaan laba jiha ayuu noqon banaanbax maanta magaalada way gubanaysaa hola ayaa ka socda oo buuq dad badan ayaa ku dhacmay booliskii maara ayuu u waayay dadka shacabka oo maaragtay dagaalamaya dadka cadaanka cunsuriyiin waaye waxay sameynayaan islaamka ay necab yihiin ma arkana qof madow way dilayaan islaamkana banaanbax ay sameynayaan weliba banaanbax nabadeed oo wax buuq wax rabshaa jirin laakiin cadaankii laamiye ay gubayaan baabuurta ay baabi'inayaan sida aad arkaysaan hadda waxaan waa Falastiin kuwaan waa Falastiin waay banaanbaxaya inta islaama oo la socotay waxaynu bar waxay leeyihiin waa ka xunnahay in la cusuriyo in dalkan lagu cusiyo intaasan adeegnin oo sharciyo ku leenahay in la cusuriyo maanta madaxda dalka joogta ayaa mikrafoonka qaaday leeyihiin buuq hal dajiyo dadka dhimashada way sii badanaysaa hala baab joojiye dhibka wadin cusuriyo waxay leeyihiin cadaan waxay leeyihiin dalkan nooga baxaan madowna ay fiiri islaamna aabka balbasho ka yar ingiriiska markii leeyahay Mareykan waa walaalo Yahuud waa laba koox noocaas islaamna aabkii heegs ayuu gaaray in ingiriiska dadka ee dhahaan wadanka nooga baxa marabna madow u baahan madowkii midabka madowga ayaa nacaya balfiiri ay cusrinayaan islaamka ayaa banaanbaxaya balfiiri sida ay dhowyihiin waxay leeyihiin dooni meelo waa marabna in cusrimin ay islaamana wadanka waa ku dhalanay oo Falastiin ay ku hayaan maanta xaaladda ariga ingiriiska uu kacsan yahay banaanbixi ugu daran ayaa ka dhacay oo dhimasho badan ayaa ka soo gaartay badan cadaanka cusurnimada aad ugu badan madowga ma arki karaan waxay leeyihiin noo madowna wadanka laga baxo wadanka anaga iskale madow ma lahan warkaasi ku imaada banaanbaxaasina laba nin madowba ay waxay dileen niman cadaana madowgana waa niman kirishtaamiina oo dalka oo dhan ahayn marka islaamkana ku kacay cadaankii banaanbixi oo sii laba kacleynaya baabuurtii magaalada waa la gubaya dadkii waa baaba'ayaan islaamkana waa banaanbaxa marfiiri maanta xaaladda way qsan tahay oo breaking news waa newska u dambeeyay waay ingiriiska xaaladiisa aad u kacsantaa maanta oo banaanbixi ugu weyn ayaa ka dhacay maara waa loo la'ayaa dadka shacabka kala joogsi ma lahan oo way ka soo socdaan wixii allah wixii arkaan gacantay ku dhufanayaan waxaana kasii daran dad badan ayaa dad ku baaba'ay oo aad u dhaawacyo kasoo gaareen oo baabuurtooda la gubay dad hantidooda la baabi'iyey ingiriiska maanta xaaladiisa aad ayay u kacsan tahay soomaalida muuqaalka qabta meel la gaarsiiya dalka ingiriiska waxaa ka bilaabatay cunsurnimo la cusrinayo dadka islaamka oo wadanka u dhalan oo islaamka Falastiin ahaato Soomaali ahaato madowga ahaadan ayaa la cusrinaya cadaanka ayaa ku kacay waxay leeyihiin islaam dooni meeno madow dooni meeno islaamkiina asagana halkaas ayuu maaragtay ka xanaaqay cusurnimada loo geysanayo shargalay muuqaalka badan maanta xaaladii waa nooca waay oo islaam nacab ayaa ka socda kaas bal fiiri islaam nacabka aad wuxuu gaaladii waxay markaa baleeyeen dadka nacaan oo madowgii midabka madowga ayaa lagu dhacayaa diinta islaamka الله أكبر شغله موقع مثلا ما عاد بنو فلسطينية بنابح يقبسين عاصمة لندن ويسكت بنابحنا هذا برا ساقطين أيوة الدين الإسلام كر وينين هيا السوريين نمنا كعرر ليه يعني سلام يا رحمة أو ذلك إنجليز كيامانتا ذلك أسوأ در بنابحيو لبنا نعه قارن بنابح السوريين يسمنا قارن بنابحنا بدن أو كردون فيري وحاجة كسادة شغله موقع أيوة مثلا ingiriiska xaaladiisa maanta way kacsan tahay cusurnimada u dambeysay ayaa ka socoto islaamna aabka ayaa heerkaas gaartay shaqare muuqaalka aad maasan dadka masaakiinta ilaahay u maqan hal shaqare